taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Badhan Gaashaale Sare Cabdi Axmed Nuur ayaa kormeerka dargalin ku soo maray degmooyinka Badhan iyo Dhahar iyo Xingalool iyo waliba deegaano badan oo hoos yimaada gobolkaasi waxaana taliyuhu intuu deegaanadaasi marayay soo dhaweyn uu kala kulmay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana taliyuhu socdaalkiisa uu ka sii bilaabay dhinaca caasimadda gobolka Sanaag Bari ee Badhan isagoo ugu horeyntiina booqday xarunta taliska ciidanka booliska gobolkaasi waxaana taliyuhu markii halkaasi uu gaadhay uu salaan sharaf kaga qaatay cutub ka tirsan ciidanka booliska ciidankani waa ciidanka saldhigga Badhan ciidankaasi oo dhul badan jooga inta magaalada joogto way ciidankan waa dhamaystiray ciidankaas waxaana taliyo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ciidanka booliska gobolkaasi uu guud ahaanba ku dardaaray inay ilaaliyaan amniga guud ahaanba gobolka isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka gobolkaasi sida sharafta leh ay leebisantay u diyaarsantihiin shaqada ugu diyaarsantihiin waxa ciid shacabka la idin ka soo qoray oo intiina si aan tabar ugu soo qaaday waxa weeyana shacabkiina wadeegta nabadgelyada ka shaqeysa hagarle ugu shaqeysa mumkin wixii dawladda idinku soo dawada soo gaadha si sharaf leh idinku soo gaadha waxa la ka rabaa sidii niyeysi laba jibaaran inaad u shaqeysa information kana loo qaaday taas la garanay Soomaa wadiya soo batidi dalkeena inaan ugu shaqeyno volunteer iyo waxil iyo waxba ugu shaqeyno insha Allah inta dhibana dawladdeena ka sugeynaa waan u gudbinaynaa horena u gudbinaynaa waxaana taliyuhu sidoo kale uu kulamo la yeeshay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Badhan iyo waliba degmada waxaana ay ugu ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan taliyaha soo dhaweyn waxaan leenahay taliye soo dhawow deegaankaagii iyo dhulkaagii aad taliyaha ka ahayd weeye ku soo dhawow shaqada ku soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii taliyuhu sida la wada ogsoon yahay taliyihii uu hadda bedelay isaga ka horeeyay waxaana taliyuhu socdaalkiisii wata uga sii gudbay dhinaca degmooyinka Dhahar iyo Xingalool isagoo xal ka jaray saldhig ay leedahay degmada Xingalool waxaana halkaasi hadal mahadcelin ka soo jeediyay mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada u mahadceliyay xukuumadda Soomaaliland ay u hirgelisay saldhigaasi Cali Aan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.